نكيات سكور هرتين برعد بديتها سيدا سكو أفكارتين ما كده سكو عيسى عبد أحمد عيسى عبد أحمد سكو ما كده بس سكو أفكارتين وريو عيسى وريسيgiisu waxa dad fara badan ugu soo jiitay British show wuxuu ka duwanaa barnaamijyada yana odhan waraysiyadii aan sameeyay 32 sanadood ee warbaahinta ku jiray si wanaagsan wuxuu kaga duwanaa waa su'aasha ma taagan maxay kaga duwanaa wuxuu kaga duwanaa nimanka horta burcad badeeto dadka qaar baa ka warhaynin baa laga yaabaa u dhowdo sharci iyo dastuur bay lahaayeen mayagu taab salaan xaqiiqadii u yaalay sharcigoodu wuxuu ahaa markab ama dooni Soomaali u raran bay qabsan jireen waa koow taas waa mid hadday qabsadaanna malaayiin kuma xidhi jirin oo dadka ma helayaan oo bagaash u sida iyo dhowr gaari si wanaagsan tii kale ee Soomaaliduna way soo galaysaa meesha oo reer hebel baa naga qabsaday reer hebel baa haay wax naga maqay wadiga haay ay galiyay dadna saddexdaas sababood awgood nimanku may qabsan jirin hanti Soomaaliland sax wada malaayiin kama helayaan marka عيسى عبد أحمد يتيمكيس مركب صومالي لا ذي بقبصدين وقعنتو كذا عبيدي هي اللي مركب بدأ مرة يقرن يعني تدخل دي مركب كله هيدو دبي شوكتها أيام لحظة نمبر كبيسي نمبر كيس وبرجع برعباد ده ندي شيء كده عركامريش حامي بريد شو نمبر كيبان قاطي مركا أخلاقيات كصحافة sida adigu ba taqaan waxa ku jira qofka markaad wareysanayso waa inaad taa wareysigu waxa ku saabsan yahay intaas oo daqiiqo noqonaya goortaas uu baxaya marka qofku xaq u leeyahay inuu ku yiraahdo imika diyaar ma yahay 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama imisa goor bal lagu soo celi tana male oo hadda qaar ka marka ugu soo celiyana dib wali oo ka dadna نبر عضبده هذا مركب هايستا ده أخلاقيات كيس حافظ من مريكرتي صح وذاك تاس وذاك تاي نمبر كيبان قاطي ده نوع كله مشين كان سيشت كيلو دوبي ورئيس سيو نكس ده نوعان ورئيس الموضوع هرتوا شاكذا يدي أردن حبض لك مقول لبيه 8 دقيقة سدا هاي مكوبه أو لما وحبل لما editing لو ما سوي تفتير لو ما سوي حبض لك مقول هي تلافكي وعناي وخاقبت markuu qabtay baan deewaaniga isu sheegay waa ka deedna in badan rafanaya ee la ina Cabdilaahi Riite waxaan kugu garanaya tasoone ku soo ayay PO-da ka soo ayay deedna waa kale aduma lacagtaadna siinaysaa inta loo dhow igu dul fakaraya anaguna intaan tiisi ka jawaabo ma hadal su'aal kale u raacaya markiiba adu markii dambe waa taanu de isku soo dhacno iyo waramay adiga markan ayaa soo siiyay qolada markabka ay soo siisay walaal qolada markabka qoladan markabka iska lahayd oo meeyo xagee joogan Dubai bay joogan Dubai bay degan yihiin markabku muxuu siday maxaa saaray intaas uma doonaynaa inaan xaqiijino ma malaysa ha walaal ayaga maxay weydiin way iyagu waxay igu yiraahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waaga idinku ma xaqiijiseen waxa markabku sido maanow anagu waxba ma ognahay waxna moogin waatay waxa ogtiin muxuu yahay ma maqlaysaa waan ku maqlayaa Cabdisalaam Hareeri inaad maxaa ku cadeynaysaa waa Cabdisalaam Hareeri baa walaal kula hadlaya Voice of America kala soo hadlaya hadda maxaan ku cadeynayaa anigu la Voice of America ma jooge dad dhaladaan joogay London baan kala soo hadlayaa warkanna idaacadda ka dhageysan doontaa ma maqlaysaa hadda idaacadda lama jooge waxaan ku yiri maxaan ku cadeynayaa adigu hadda Cabdisalaam Hareeri maxaa doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo ما مغليسا وانكو مغليا adiga magaca ciise abdi ahmed ciiso markab kalkay ka soo qabateen ma mغليسا hay markab kalkay ka soo qabateen ciiso warniyo waxaan ku sheegayaa adiga waxaan rabaa Cabdisalaam Hareeri inka ilaaha la iyo in kale ma cadeyn karo waxa weeye anigu markabkan badda Hindiya alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa warar baa jira sheegaya ciiso inuu hub sido markabku
ما يعني وحوبة أو إنها وقبتين أو مركب قوة ذي المجيدي عيسى ومركا العقد انتين لك ما كدل بنيسان ومدح فرشاين مركب كالله ذي كسيو وأنا كدل بنا وهي كيلو سينون من كإسكال بعض إنه ما يشيء واحد يموي لا يمكن كل شيء سين هذا يعني ليش يجين هذا كل شيء معك كذا كريسة ما العكس عن نصينك ما يجعلوا قد باللهين أو دقيسن لها دلب كينا أيوة ما لايف ما نقول على الله إذا على واحد كول على الله ثلاثهم بينه كول على الله لكن عيسى ما يشيء كريسة قيمها العكس هذا البنيسان أنا وعن كل شيء كرينا العكس مركان إياه كول على الله عيسى hawshan aad ku jirtaan idinku sida u aragtaan dad fara badan waxay u arkaan inay tahay hawl budhcadbadeednimo ah oo argagixiso badda laga sameeynaya adeero anagu dad masaakiina oo kalluumaysata oo badahooda ka kalluumaystaan wahay waxaana la ku soo daayay qashin kuwa sida maraakiib sida waxaana la ku sii daayay kuwa suus sida waxaana la ku sii daayay kuwa jiriifa waxa hadda ugu dhinac xiran mid kalluunka yagii wata shanagaha yagii wata baraawista yagii wata xargaha yagii wata qalabka yagii sita badidaan ka mari weynay markaan dabacnay inaan iska difaacnana kuwa dagaal baa noo adeegsado caalamku noo adeegsado dad fara badan baa qaba sidaas inay tahay sidii markii hore ay ku bilaabantay laakiin ciisow imika waxa la sheegayaa in badihii caalamiga ahaa oo ilaa Seychelles gaadhaan oo maraakiibta ka soo qabsataan oo kalluunkuna aanu ahayn kii badaha Soomaalida lagala soo baxayay annaga maxaan ku yiri xeebtii annagu aan ku noolayn oo biyaha afkooda naloo soo galay annagana duruuftu meeshay nala gasho baan aadaynaa ilaa annagaba guryaha iyagii iyo xeebta iyadii baa la soo galay maxaa looga hadli waayey meeshii annaga aanu kalluumaysadayadu aanan dhaafi jirin iyo meeshii aan maaragtay ilmaha iyagu xeebta iyagoo taagtaagan ay ka kalluumaysan jireen maxaa looga hadli waayey maaragtay marka naloo soo galay oo qarkii la jajabshay oo hubkiina la ka jajabshay oo marsooyinkiina la ka cayshay oo qalabka iyagii lagu gurtay laakiin markabkan ay imika haysataan ma aha soo maaha mid isagu kalluumaysi maaha soo maaha adeero macaanow annagu ma kala naqaan mid aan u qabna xamuul ayaa waxaan aragnay kutanaro ban ah asagoo nagu deex furayaynu aragnay marka annaga waxa weeye midkii annaga aan markaa badarka noo wadin oo aanan hebel u aqoon ma kala garan karno kii xamuulka ahbaa waxaa naloo soo saaray haamo ban ah oo qashin ah waxaa naloo soo saaray muxuu ahayso ayagii baa jiriifna lakugu bedelo jilba naloo soo saaray kalluumaysi ah midkii dagaalka oo xabadaha nagu ridayay ayaa dhinacna kalluumaysi ka oo xeerta noo taagan dhinacna xabad nooga ridayo annaga xabad nala dhacaya idinka yaa hawshan markaa idiin xil saaray waxaad tidhi dad kalluumaysataa baanu hayno urtal daruurigoodii laga hor yimi yaa idiin xil saaray hawshan annaga duruuftaa noo xilsaaray waqtigaa noo xilsaaray waxa weeye markii anaga aan wixii aan ka qaraaban jiro ilmaha ku korsan jiray aan weynay duruuftaa noo xilsaarnay inaanu difaac galno maraakiib horena sidaan qiyaasay waa qabsateen ciise soo maaha qoladiinaas maya annaga waxaana dhibaatay ma dhibaatayna anagu wixiina nabadgelya waana nabadgelinaa wixiina dhibaateeyana way iska ilaalinaa oo waxaanu nafta la galnaa inaanu iska celino siday u badan tahana hadda waaba nala ka awood badanyo waa nala ku laaya annaga laakiin maraakiib hore waa qafaalateen sow may jirin si ay ku dhammaatayba may maqlaysaa waan ku maqlayaa ciise annaga waxna nabadgeliyey ma qafaalano waxna ma qafaalane wixii nagu soo xadgudba ma waxaan isku daynaa inaan iska difaacno kaasina wuxuu ahaa ninka magaciisa iigu sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda iyagu haysta markabkaasi almiisaan cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga wamarkan yaa soo siiyey qolada markabka ay soo siisay walaal qolada markabka